أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. قدوميها محكمة رعفانك قبل كبنادر قدقا قرصورياشا يكون جرى دعوة هالوذينا محكمة قرأنا صاحبة الدفاعية هذه سنياشا إذا سنياشا لفتودا إيو كسوق قلياشا محضرك الدعوة بعد صحافة الأمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن قدوم يقرصو ريال محكمة رعفانك قبل كبنادر شرفت له حفيز كحير إلى ليها قود قرنكو وحاو محكمة هورتي ذا كسو جيدين إياه كلمة كصابسا سوق بجبينتا يجونانتك كيس كدعوة عقابات كسمدي سطحي بقول يطبعا لبكون لبعتني يصدح محكمة درعفان كقول كبنادر كفرا سوى فقصا قضب كبقول طبعا يسجال فرقدي سكوباد حرف كيس حير كهب كعقاب الصوماليات الدعوات كاس أو أي سنيال كيهين كو أبوكر محمد علي إنا علمو محمد عدو لشي كون سقال بقول سديتني سقال كي كل شيء دقمة عيالدير قبل كقل جدود دقمة ياقشيد قبل كبنادر لبو عبد القادر عبدي السعدال إنا مريم شيخ أبوكر لشي كون سقال بقول سقاشن يلبدي كل شيء حمر دقمة هولوداك صدح محمد آدن عبد الله إنا خضراء جامع ياسين لشي كون سقال بقول لحدن يا أفرتي كل شيء دقمة هرقيساء قبل كوقوي قلبيات دقمة دركين لي قبل كبنادر هذا سنياشن وسوى الشرء اللوجو إيدي إنه يكون حد قدبين شبيين قضبة الشرعية كلا كو قضب كلا بقول أفرتني كو حرك عقابة الصوماليات ولا لا أخري قضب كتدباتني كوباد إسلا حرك عقابة الصوماليات ونحر كيسو يهي كقيب قادة شو دنبي ولا لسي أخريي قضب كالصدنية سقالات فرقدي سكوباد حرف كيس بي حرك عقابة الصوماليات سفالها الدنبقى عسلية sababta oo ah waxa ay si wada jir ah u galeen faldambiyeed xatooyo xoolo dadweyne lunsasho dakhli dawladeed si ay u qariyaan dambigana waxa ay galeen dambi kale oo lacag dhiqis ah si ay uga faa'iideystaan una daboolaan ugana baxsadaan in loogu ciqaabo ama loogula xisaabtamo faldambiyeedka lunsashada dakhliga dawladeed. أبوكر محمد علي إنا علمو وحاوها ماموليه عشورها بريقة وسارة مالية دو كل هذا هيقرون كالديارة دها آذن عبد الله مقالة مقدشو لقصوا بلعبو مارسو لبكون سديديو طبعا إلا عبر لبكون صدحي لبعتن سيدا أوجد وحاو قيب كالنقضي لنصشدا دخل الدولة دا كما قن وقارية 20 مليون سقال بقول صدن يلبكون شن بقول $700 سببته وحا وحفيز كعشورها بريقة شوقي مددي دخل جاس للربي إنه دولة دا وصحر هذا محمد آدن عبد الله إنا خضرو وحوها مامولها بنجي قدحة لان تجرون كديارة دها آدن عبد الله مقالة مقدشو لقصوا بلابو لبكون سديديو طبعا مارسو إلا لبكون صدحي لبعتن أبريل sidoo kale waxa uu qayb ka noqday eedeysanahaasi lunsashada dakhli dawladeed oo isaguna gaaraya 20 milyan $932,570 sababta oo ah waxa uu isaguna xafiiskaas maamulayay muddadii dakhligaas la leexsaday. Cabdiqaadir Cabdi Socdaal ina Maryan waxa uu ahaa khasnaji ka tirsan bangiga dhexe laanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
waxa uu ku eedeysan yahay isagu in uu ku lug yeeshay lunsashada dakhli gaadhaya $83,630 waxa uuna qaadayaa mas'uuliyadda muddadii 20 beri ku dhaweeyay xafiiska joogay dakhliga dawladda ka maqan ee ahayd in loo soo xireeyo qodobka labaad mudane gudoomiye ay ku eedeysan yihiin waa 366 oo lala akhriyay qodobka 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo abeen abuurista dokumentiga lacag qabashada xisaabiyaha guud dokumentigaas oo ay sida saxda ah mas'uul ka ahayd wasaaradda maaliyadda gaar ahaan xafiiska cashuuraha bariga hase yeeshee isticmaalka adeeg bixinta ama adeegsiga dokumentigaas oo hay'ado kale la wadaagayeen taasina ay caddeyn u noqonayso isla ogaanshaha isticmaal dokumenti been abuura si looga dhunto isla xisaabtanka dakhliyada maalinlaha ah sababtoo ah wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xisaabiyaha guud iyo hay'adii marka adeega bixinaysay ee dokumentiga lacag qabasho loo jaray ayaa isla xisaabin jiray si maalinla ah waxa xusid mudan dokumentigaas la been abuuray oo la rabay in lagu xireeyo kiisa saxda ah lacagta dakhliga dawladda ayaa loo adeegsaday in lagu leexsado qayb kamid ah adeeg dakhligii laga qabtay adeegyadii baxay iyadoo oo la og yahay in xafiiska wasaaradda maaliyadda cashuuraha bariga iyo xafiiska bangiga dhexe laanta garoonka diyaaradaha ay isku hal xafiis ahaayeen mudane gudoomiye qodobka saddexaad waa qodobka 360 la akhriyo qodobka 71 oo abeen abuur shaabada dawladda iyagoo u adeegsaday inay saaraan ama u isticmaalaan dokumentiyada lacag qabasho ee ay rabeen inay ku lunsadaan lacagta la leexsanayo qodobka afraad waa qodobka labaad ee ay ku eedeysan yihiin waa qodobka labaad farqadiisa koobaad labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortagga lacag dhiqidda iyo maalgelinta argagixisada sababtoo ah waxa ay si toos ah ugu lug yeesheen dambi lacag dhiqid qarin iyo daboolid lacag ku soo gashay qaab aan sharci ahayn iyo hudmid sharci darra ah sida ku xusan xeerarka dalka taasoo ay caddeyn u tahay inay dambiga galeen in ay caddeyn kari waayeen ilaha dakhli ee ka baxsan mushaharkooda dawladda ay ka qaataan ee ay ku kasbadeen kaas oo muujinaya kasabka kororka maaliyadeed ee ku yimid dakhligooda gaar ahaan dhaqdhaqaaqooda maaliyadeed ee dhex maray kootooyinkooda bangi ee uga furan bangiyada gaarka loo leeyahay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama baaritaan hanti dhowris oo qoto dheer lagu sameeyay xafiisyadii ay ka howlgelayeen saraakiisha eedeysan baaritaankaas oo la bilaabay 20kii bisha afraad 2023 soona gabagaboobay 20kii bisha lixaad 2023 xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku waxa uu maxkamadda sharafta leh la soo wadaagay natiijo baariseed dhammaystiran oo faahfaahinaysa dhacdada faldambiyeed ee dhacday sida ay u dhacday goobta ay ka dhacday cidda ku lug lahayd dakhliga dawladda ka maqan qof kasta dowrka uu ku yeelanayo ee uu mas'uuliyaddeeda qaadayo maadaama baaritaankaas baaxaddiisu ahayd 8 maarso 2018 ilaa 19 abriil 2023 muddadaasna ay eedeysanayaashu ka howlgelayeen xafiisyada uu ka dhex dhacay faldambiyeedku maadaama baaritaanka lagu ogaaday in dakhliga guud ee adeegii la qabtay muddadaas 2018 abriil adeegaas dakhliga guud ee ka soo xiroon lahaa uu gaarayay 330,370,260 dollar maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu cadeeyay in dakhliga la leexsaday ama la lunsaday uu gaarayay 20,000,000
$932,570 oo ka mid ah dakhligii guud ee ahaa $332,370,260 dakhligaas oo laga qabtay adeegyada dalku jooga iyo ruqsadda shaqada ee la siiyo shaqaalaha shisheeye ee dalka ka howlgala kaas oo si isku mid ah loogu eedeeyay qayb ka mid ah saraakiishii maamulayay xafiisyadaas iyagoo oo qaatay dowrar kala duwan xafiisyadaas oo kala ahaa xafiiska cashuuraha bariga wasaaradda maaliyaddu ku leedahay garoonka diyaaradaha aadan cadde xafiiska waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xafiiska bixinta ruqsadda shaqada ee ay bixiso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya xafiiska bangiga dhexe ku leeyahay laanta garoonka diyaaradaha qaybta u adeegidda dakhliga ka soo xirooda ajaanibta gaar ahaan dalku jooga isku darka dakhliga maqan oo gaaraya mudane gudoomiye $20,330,570 halka isku darka dakhliga dawladda looga xoreeyay 33 milyan iyo dheeraadka uu gaarayo $12,437,690 oo kaliya intii u dhaxaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 mudane gudoomiye waxa xusid gaar mudan warqadda sumadeedu tahay GOV ama Government 10 eberhal 98/2024 kuna taariikhaysan 7 bisha 2024 kana soo baxday bangiga dhexe ee dalka kuna saabsanayd in bangiga dhexe ee dalka uu qabtay dakhli gaaraya $6,881,831 intii u dhaxaysay 1 Janaayo 2018 ilaa 30 Abriil 2023 dakhligaas sida ku cad warqadda mudane gudoomiye kuma koobno oo kaliya adeega dalku jooga iyo ruqsadda shaqada ee ka soo xirooda xafiisyadaas ee waxa dheeraad ku ah lacagaha ganaaxa ee ku xirooda magaca fiisaha ama ka soo xirooda waaxda ajaanibta taasoo aan ku jirin dakhliga baaritaanka lagu sameeyay sida ku cad ama ay ku tusinayso warqadda kale ee sumadeedu tahay xaga ama xafiiska xisaabiyaha guud eber 6/4/2024 kuna taariikhaysan 13 bisha 2024 kana soo baxday xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda laguna cadeeyay in dakhliga ku xiraysan magaca fiiso ama dalku joog uusan u kala saarnayn dalku gal iyo dalku joog iyo ganaax ee uu si guud oo xidhmo ah dakhligaas loogu diiwaan geliyo magaca fiisa inuu ku soo xirooday taasi waxay cadeynaysaa mudane gudoomiye xogta warqadahaas maxkamadda lala soo wadaagay ku sugan in dakhliga bangiga u diiwaan gashan uu yahay xidhmo guud oo ka kooban dalku joog dalku gal iyo ganaax wadartooduna ay ka badnaanayso dakhliga dawladda uga xirooday dalku jooga ee qadarkiisu gaarayo $12,437,690 mudane gudoomiye maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku soo bandhigay boonooyinka ama rasiidka lacag qabasho kuwaas oo asalkooda uu leeyahay xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda wasaaradda maaliyadduna mas'uul ka ahayd ku shaqaynteeda hase yeeshee la been abuuray si loogu lunsado dakhliga dawladda waxaa xusid mudan in boonooyinka lambaradooda la been abuuray qaybtood aan la siin in aan loo ogolaan in ay ku shaqeeyaan xafiiska cashuuraha bariga ee garoonka diyaaradaha taas oo bedelkeeda la siiyay xafiisyo kale oo dawladeed oo dakhli soo xareeya sida wasaaradda gaadiidka wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda cadaaladda iyo kuwa kale laguna xareeyay dakhli ka yar kan ka muuqda warqadaha maxkamadda horteeda yaala ee laga soo saaray systemka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda
ee lagu qabtay dakhliga adeega dalku jooga sida ku cad warqadda sumadeedu tahay xagga eber 6/4/2024 kuna taariikhaysan 13 bisha 2/2024 kana soo baxday xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda taas oo muujinaysa khiyaamada iyo xirfadda tuuganimo ee lagu leexsaday dakhliga dawladda sida uu soo cadeeyay xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda maadaama mudane gudoomiye xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu soo bandhigay cadeeyayna in saraakiishani ay adeegsadeen tiim barabeen abuur ah kaas oo la saaray warqadda lacag qabashada ee lagu lunsaday dakhliga dawladda sida ay wasaaradda maaliyaddu xafiiska cashuuraha barigu laftigiisu soo cadeeyay in aysan aqoonsanayn mid ka mid ah tiim barayaasha xafiiskaas garoonka laga isticmaalay maadaama mudane gudoomiye xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku soo bandhigay in dakhliga dawladda qayb ka mid ah lagu shubtay ama la marsiiyay akoono iyo kootooyin gaar loo leeyahay taas oo saddexda eedeysane ee maxkamadda hortaadan laftigoodu ay qirteen in dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee xaddhaafka ah ee maray kootooyinkooda bangi qayb ka mid ay yihiin dakhligii dawladda ee la rabay in lagu shubo khasnada midaysan ee maaliyadda tallaabadaasina ay si toos ah u khilaafsan tahay qodobka afraad ee xeerka maareynta maaliyadda guud kaas oo nuxurkiisu yahay in dakhliyada dawladda ay waajib tahay in dhammaantii lagu xereeyo laguna shubo khasnada midaysan lana marsiiyo nidaam maaliyadeedka dalka laguna shubo bangiga dhexe ee dawladda maadaama mudane gudoomiye fatashkii iyo dabagalkii lagu sameeyay kootooyinka bangi ee eedeysanayaasha uga furan bangiyada gaarka loo leeyahay ay dhex mareen lacago xaddhaaf ah oo ka badan mushahaarkooda ayna ka mid tahay lacago aan tixraac iyo adrees lahayn meesha ay ka soo galeen ama meesha loo xawilay iyo aysan caddayn iyo lacago ay caddahay in ay yihiin cashuurtii dawladda oo lagu shubay kootooyinkooda shakhsiga ah taasina ay caddaynayso inay ku lug leeyihiin faldambiyeedka lacag dhiqidda sida ku cad xeerka ka hortagga lacag dhiqidda iyo maalgelinta argagixisada maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud uu soo bandhigay sistamka lagu diiwaan geliyay cashuuraha iyo dakhliga dawladda u soo xirooda kaasoo lagu ogaaday in lacagaha lagu qabtay waraaqaha xisaabiyaha guud ee uu isticmaalay ee been abuurka ah ee laga isticmaalay xafiiska cashuuraha bariga ee garoonka aysan qaybtood u dhicin ama aan lagu shubin khasnada midaysan ee dawladda maxkamadda racfaanka gobolka banaadirna intii dacwadda lagu jiray ay arrinkaas si cad bulshada ugu soo bandhigtay iyadoo shaashada maxkamadda laga arkayay in lacagta rasiidka maxkamadda loo soo gudbiyay ku qoran iyo lacagta u xireysan dawladda hal rasiid oo isku number ah ay kala duwan yihiin maadaama rasiidkan been abuur yahay si dakhliga dawladda loogu lunsado sidaa oo kale xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladduna maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ugu soo cadeeyay rasiidyada loo isticmaalay lunsashada dakhliga dawladda maadaama mudane gudoomiye xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu maxkamadda horteeda keenay marag nool gaar ahaan maxkamadda darajada koowaad kuwaas oo si cad u sheegay kana marag kacay iyaga oo habraaca marag furka ee sharciga xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed si waafaqsan qodobka 182 faqradiisa labaad maray in shaambada iyo tiim baraha ay saraakiishani waxay ka marag fureen in shaambada iyo tiim barayaasha ay saraakiishan kala duwan isticmaalayeen ay saraakiil kala duwan isticmaalayeen si qarsoon si ay dakhliga dawladda ugu lunsadaan waxa xusid mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh cod maalinka fadhi kamida fadhiyadii maxkamadda la sheegay in laga duubay marag beeninaya maragii uu furay maragaas oo lagu magacaabo Cali Xasan waxa xusid mudan in codkaasi uusan noqon karin iska rogid
caddaymaha uu maragu ku soo bandhigay maxkamaddii darajada koowaad sababta oo ah qareennadu waxa ay ku doodeen in la xiray iyagoo oo aan keenin maragaas meesha lagu xiray taariikhda la xiray sababta loo xiray iyo cidda xirtayba sidoo kale in isagu codka leeyahayba hadiiba looba dhageystaba in cod ahaan loo dhageysto aysan cadayn codkan cidda iskale maadaama cod la shiday qofkii ku hadlayna aan la garanayn daliilna aysan arintaas u keenin mudane gudoomiye arinkaasina uusan noqon karin iska rogis cadaymihii uu maragu si waafaqsan habraacyada sharci uu maxkamadda uga marag furay aysan cadayntaasi iska rogid noqonayn si waafaqsan qodobka 164 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama mudane gudoomiye shirkad kamid ah shirkadihii adeega loo qabtay ay maxkamadda horteeda ka qirteen in lacagta adeega qayb kamid ah kala tacaamuli jireen qayb kamid ah saraakiishii xafiisyada ka hawlgelayay oo aan kamid ahayn saraakiishii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga halka qayba shirkadaha kamidana ay u muuqanaysay inay qariyeen dadkii ay kala tacaamulayeen maxkamadduna arrinkaas ay su'aalo togan ama tolmoon ay ka weydiisay in ay tuhun gelinayso tacaamulkii shirkadaha iyo kala dhaxeeyay shakhsiyaadkii ay la tacaamulayeen maadaama mudane gudoomiye xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku cadeeyay inay dhameystiran yihiin tiirarka qodobada eedda kuwa maadiga iyo kuwa macnawigaba si waafaqsan qodobka 20aad 23aad iyo 24aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed una cadeeyay in uu dhacay falkaas oo alunsasho dakhli dawladeed been abuur dokumenti iyo isticmaal been abuuris shaabad dawladeed sida ku cad qodobka 241 360 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed falkaasna sharcigu u aqoonsan yahay in uu yahay fal dambiyeed sida ku cad qodobka 20aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed falkaasna ay geysteen saraakiil dawladeed sida ku cad qodobka 240aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed fal dambiyeedkaasna loo sameeyay qaab ula kac ama kas ama doonis ah sida ku cad qodobka 23aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed cadaynta iyo daahfurka tiirarka qodobada eedda ayaa daaha ka qaadaya fal dambiyeed ka dhacay oo alunsasho iyo leexsasho dakhli dawladeed sababta ka dambeysayna ay ahayd in si ula kac ah dakhligaas loo lunsado si loogu gaaro hudmid sharci darro ah codsiga xafiiska xeer ilaaliyaha guud mudane gudoomiye garsoorayaal maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku uu ku guuleystay in uu si dhameystiran u cadeeyo in fal dambiyeed dhacay fal dambiyeedkaasna eedeysanayaasha maxkamadda hortaagan ay si toos ah ugu lug yeesheen ama u galeen si waafaqsan qodobka 110 oo lala akhriyo qodobka 163 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xafiisku waxa uu maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ka codsanayaa in ay eedeysanayaasha ku hesho dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay si waafaqsan qodobka 123 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inay ku xukunto ciqaabta ugu sareysa ee ku xusan qodobada lagu soo eedeeyay in ay si waafaqsan qodobka 101 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed si joogto ah looga mamnuuco inay qabtaan shaqo dawladeed ama shaqo guud way mahadsantahay maxkamadda gobolka Banaadir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.